بسم الله الرحمن الرحيم صاحبيال kusoo dhawaada janaalka Mahaday Weyn oo aad ka dhageysataan alaaba qodobadii ugu dambeeyay ee wararka caalamka dhacdooyinka ka dhaca dalka Falastiin iyo soonaha bariga dhexe ayaan alaab idiin soo gudbinaa. Israa'iil ayaa tobanaan Falastiiniyiin waxay ku dishay marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin xilli ay wali ku hanweyn tahay inay gabi ahaanba la wareegto deegaanada reer Falastiin ay ku nool yihiin. Israa'iil ayaa sii wada duqeymaha cirka ee Gaza maalintii 8aad oo xiriir ah iyadoo ugu yaraan 23 qof ay ku dishay weeraro waaberi ah oo ay ku jiraan 7 caruur ah. hay'adda Save the Children ayaa sheegtay in ka badan 270 caruur ah la dilay toddobaad gudihii tan iyo markii Israa'iil ay dib u bilowday weeraradii ay ku haysay marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin. taasoo calaamad u ah qaar ka mid ah maalmihii ugu dhimashada badnaa ee caruurta tan iyo markii uu dagaalku bilowday. waa hadda tan iyo markii uu dagaalka bilowday toddobaadkan waxay noqotay toddobaadkii ugu dhimashada badneed caruurta ku nool Falastiin. waxaa sii kordhaya carada ka dhalatay dilka Israa'iil ay ku dishay wariyihii Al Jazeera Hossam Shabat ee Gaza iyo xariga filim sameeye Hamdan Ballal oo ku guuleystay abaalmarinta Oscar ee daanta galbeed ee la haysto. wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay in ay ugu yaraan 50,144 Falastiiniyiin ah la xaqiijiyay inay dhinteen 113,704 kalena ay ku dhaawacmeen dagaalka Israa'iil ee Gaza. xafiiska warbaahinta ee xukuumadda Gaza ayaa cusboonaysiisay dhimashadeeda in ka badan 61,700 oo ruux isaga oo sheegay in kumanaan Falastiiniyiin ah oo lagu laayahay burburka hoostiisa loo malaynayo inay geeriyoodeen. ugu yaraan 1,139 qof ayaa lagu dilay Israa'iil intii lagu guda jiray weeraradii ay Xamaas hogaaminaysay 7 Oktoobar 2023 in ka badan 200 oo qofna waa la qafaashay. inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa wararkii caalamka kuwii ugu dambeeyay ee maanta. waxaan sidoo kale idiin soo gudbin doonaa dhacdooyinka sida degdega u dhaca inagoo idinka haqabtiri doono xaaladda bariga dhexe. soo dhawow, halkani waa Mahaday Weyn. kusoo dhawaada YouTube-keena Mahaday Weyn. Subscribe, like and share. soo dhawaada. Ramadan Mubarak.